Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waa musharax u taagan xilka ugu sareeya ee Soomaaliya waa mid ka mid ah shakhsiyada ugu saameynta badan waqtigan Soomaaliya waana hogaamiyaha ugu weyn ee mucaaradka dadka siyaasadda Soomaaliya dhirindhiriya ayaa sheegaya inuu taagan yahay halkii uu shalay taagnaa farmaajo 2017 ololaha doorasho ee Soomaaliya ayaa soconaya waana hogaamiyaha taageerada ugu badan ka haysta shacabka aad ayuu u dhaliilaa maamulka talada haya ee dalka kor ayuu uga hadlaa dhibaatooyinka dhabta ah ee jira waxa uu cambaareeyaa waxqabad la'aanta iyo hoggaan xumida dawladda waana dhabihii madaxweyne farmaajo ku yimid kursiga ugu sareeya ee dalada dalka laga maamulo laakiin dawladdeena markii ugu horeysay waxay ku dhiiratay urur Soomaaliyeed oo xorriyad u dagaalamaya inay tira waargeyso markaas waxay rabaan ka aamusno saala socotaan hore waxa u jiray kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo dawladdii uu hogaaminayay madaxweynaha xilligiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u qaadeen dalka Eritrea oo ilaa iyo hadda la meel ay jaani cirib ay dhigeen halka ay ku sugan yihiin waalidiintoodana maalin walba ay hortaagan yihiin warbaahinta ayna doonayaan cadaalad u raadinayaan wiilashoodii iyo gabdhahoodii loo qaaday wadanka Eritrea bilowgii dawladnimada farmaajo ee si leecaysa ayay soo bilaabatay mucaaradnimadiisa dhibaatooyin waaweyn ayuu kala kulmay weerar toos ah oo lagu khaarijin rabay laakiin uu ku dhaawacmay maxkamadna lagu soo saaray iyo rasaas lagu hubiyay isagoo dareenkiisa cabiraya rajada ugu fiican ee hogaaminta Soomaaliya ayuu heestaa maanta weydiimo badan ayaa jira laakiin aynu u soo daadegno dulucda muuqaalka daawade haddii uu ku guuleysto kursiga laga maamulo talada dalka ma laga yaabaa inuu noqdo farmaajo oo kale isla markaana qaban waaya waxyaabaha hadda uu ku dhaliilayo dawladda uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo mise waxa ay kula tahay inuu qaban karo waxyaabaha uu ballan qaadayo haddaba daawade fikirkaaga kaga aadan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame qaybta hoose ee commentiga ayaad inagala wadaagi kartaa muuqaalkana like share sidoo kale u share garay saaxiibadaada kale si ay nagu soo biraan mahadsanida